بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. dhammaan walaalahay daabanaya waa salaamantiin waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka oo ahayd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahay subxaanahu watacaala u mahadceli in uu ku soo gaarsiiyey fideogan sababtoo ah waxaan rabnaa in aan ooga hadalno dardaaranka midka adduunka ugu khayrka badan, ugu sharafta badan, ugu kiraamada badan waa xabiibkaaga Muhammad ku sali sallallahu alayhi wasallam. wuxuu leeyahay iqtanim khams qabla khams, ka faa'iidayso 5 arrimood inta aysan 5 kale ku imaanin. waa maxay rasuulka ilaahay oo noo sheeg? rasuulka sallallahu alayhi wasallam mar walba wuxuu ina tusayay wadada noo wanaagsan, wadada noogu jira sacaada iyo khayr iyo baraka. dardaaranka waxay tahay midka ugu horeeyo xayaataka qabla mamaatik, noloshaada ka faa'iidayso inta aysan kuugu imaanin geeri. mid walba anaga naga mid ah maalin ayuu geeriyoon doonaa, maalin ayaa u imaan doona sakaraatul mawt, uu rabi doonaa 1 saac nolosha ka mid ah in loogu daro si cibaada iyo camal wanaagsan uu u sameeyo. marka xabiibkeena wuxuu ina leeyahay sallallahu alayhi wasallam, ka faa'iidaysta noloshiina inta aysan idin imaanin geerida. nolosha waa 3 qaybood. midka ugu horeeya waxay tahay saacadooyin ku soo dhaafay, saacadooyinkaas ku soo dhaafayna ma soo celin kartid. midka labaadna waxay tahay waa saacadooyin hadda soo socda, nolol hadda soo socda aadan ogeyn, ma noolaan doontaa mise maya aadan ogeyn. midka saddexaadna waxay tahay nolosha hadda aad nooshahay, saacadan hadda adiga daabanaya, maalintan hadda aad nooshahay, ha noqoto maalintan iyo saacadan maalinta ugu wanaagsan, kuugu dhawaasho badan ilaahay subxaanahu watacaala, maalinta ilaahay subxaanahu watacaala aad ugu dhawaasho badan tahay, dunuubtaadan ilaahay gacanta u taaga si uu kuugu dhaafo. marka aan ka faa'iidaysano noloshiina inta aysan noogu imaanin geerida. dardaaranka labaadna waxaad la socon doontaan qaybta labaad hadduu ilaahay idmo. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.